waxaan saan wada ognahay shalay abaarihii 10kii subaxnimo ama 4 saac subaxnimo go'ay qadka internetka koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya kaasoo ah xariga fiber optica ee leedahay shirkadda Dalcom oo cilad ay ku timid ilaa shalay iyo xalay iyo maanta waxaynu la qaybsanayn ummadda Soomaaliyeed in aan baaritaan shirkadda iyo dawladda iyo wasaaradaba ay wado ciladaas waxay tahay nooceeda iyo sida xal loogu heli karo baaritaankii wuxuu soo gabagaboobay galabta nasiib wanaag ciladii halkii aan ka filayn meel ka dhow ayay noqotay cilada waxay noqotay 27 kilomitir meel u jirta xeebta Soomaaliya xarigii oo aan ka baqayno inuu go'ay ma uusan go'in wuxuu noqday dhaawac kaasoo keenay in xaraaradii ama dabkii uu keeni lahaa aad u yaraaday marka xal ku meel gaar ah ayaanu u helnay oo halkii awal uu ku xirnaa kor sii aadi jiray Port Said ama Suudaan oo halka London ee adduunyada ka sii gali jiray maadaama aysan jirin xaraarad ama dab ku filan waxaa dib loogu weeciyay Mombasa halkaas ayuu kala qabsanaya oo adduunyada oo ka sii aadaya marka xal ku meel gaar ah ayaynu u helnay xaaladii ilaa xalay iyo shalay cakirneed internetka laakiin waa xal ku meel gaar ah waxaa la dalbay markabkii dayactirka sameey lahaa oo hagaaji lahaa waxaanu rajaynaynaa mustaqbalka dhow in maartay si dhab ah loo cilad bixiyo oo ciladaas la xaliyo marka cilada maysan dhamaanin dhaawac ayuu ahaa xariga soo gaaray dhaawacina si ku meel gaar ah ayaynu u xalinay insha Allah mana dareemi doonaan bulshada Soomaaliyeed xalkaas ku meel gaarka ah laakiin waxaan u sheegaynaa inuusan cilada dhamaanin xalku uu yahay ku meel gaar laakiin dhawaan aan rajay doono in maartay xalkoo dhameystiran maraakiibtaas markay ayna soo gaaraan marka waxaan ugu bashaaraynaa ummadda Soomaaliyeed inuu dhibkii hadda uu ka yaraaday culayska uu ka yaraaday waxaan ugu mahadcelinaa dhammaan shirkadihii nagala qayb qaatay shalay iyo xalay iyo maanta in culayska laga yareeyo isla markaasna xalkii iyo ciladii si degdeg ah u helay xalna ugu helay si ku meel gaarna u xaliyay internetkina ummadii dib ugu soo celiyay marka aad iyo aad ayaa maartay ugu mahadcelinaynaa marka bulshada Soomaaliyeed waxaan leenahay isdajiyaan waxaan kaloo rabaa fursaddan inaan ugu faa'iideysto ilaa iyo xalay iyo saaki wax la isdhexmaray oo ah in la siyaasadeeyo xarig ka go'ay badda gudaheeda waxba kama jiraan inay yihiin waa cilad farsamo 27 kilomitir meel u jirta ka go'day la helay si ku meel gaaran loo xalli si maartay joogto ah xalkeeda dhawaan maraakiibta markayna soo gaaraan aan u guda gali doono dadkan aynu la qaybsan doono